السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارتا سو دواada oo mar kale barnaamij kale iyo Kista TV maalinku waa Axad waa 9 November 2025 barnaamijkeena maanta insha Allah taala waxaan ku qaada dhigi doonaa safarka uu ku soo yahay dalkan Mareykanka Mohammed bin Salman oo isagu ah dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia waxaan insha Allah taala eegi doonaa ujeedooyinka Sacuudiga uu ka leeyahay in uu u yimaado aqalka cad ee dalka Mareykanka sidoo kale waxaan eegi doonaa madaxweyne Donald Trump ujeedada ugu weyn oo uu ka leeyahay soo dhaweynta boqortooyada Saudi Arabia ee dalkan Mareykanka haddii aad nagu cusub tahay subscribe to the channel haddii hore noola joogtay like and share the video idinka mahad celinaya ku bilaabay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu la rajaynayaa in uu la kulmo ninka dhaxal sugaha ah Mohammed bin Salman 18 November iyaga oo kulankooda uu ka dhici doono aqalka cad ee dalka Mareykanka waxa Saudi Arabia ay riixaysaa ajendooyin ah laba ujeedo ay shirkan ka leedahay iyada oo aan rabin in labadaas ujeedo laga weecdo ujeedooyinka ay ka leedahay waxa weeye inay Mareykanka la saxiixato heshiis difaac ah oo defense pact baa la yiraahdaa heshiis difaac ah iyo investment marka ujeedada iyaga ay ka leeyihiin Sacuudiga oo ay rabaan inay ku kiib gareeyaan ama targetka yoolka uu noqdo wada hadalkan iyo heshiiskan iyo kulankan waxay rabaan in aysan ka weecan arrinka isaga ah oo ay ku ekaato investment iyo defense hase yeeshee markay laba dhinac isu yimaadaan qolaba waxbay riixanaysaa Trump muxuu riixanayaa iyo maamulkiisa Trump ayaa waxa uu rabaa in uu ka dhaadhacsiiyo boqortooyada Saudi Arabia in ay meesha ka baxdo cadaawadii ay u hayeen Israel oo ay xaaladda normal ka dhigaan iyada oo loo maraayo barnaamijkii ahaa Abraahimiyada oo ah saddexdan diin barnaamijka Abraahimiyada waayadan baa la riixayay waxaana ku kulansan bay yiraahdeen diinta Tawrada oo Israel oo Juuga iyo diinta Islaamka iyo diinta Masiixiga ee Christianity-ga so in la wada noolaado lis aqoonsado listixgeliyo barnaamij noocaas waayadan ba ka dhex socday taas oo loogu raadinayo wadanka Israel in wadamada muslimiinta ah ay aqoonsi buuxo siiyaan una ogolaadaan ama ay ka mid noqdaan in ay la helaan isla jaan qaadaan labadan dal oo cadaawadda meesha laga saaro marka arrinkan iyada ah Sacuudiga waa ka yara biyadiidsan yahay marka la fiiriyo wararka ka soo baxayay dhankaas iyo bariga dhexe siyaasiyiin weyn oo culus ayaa ka hadashay Sacuudiga ayaa wuxuu ku adkaysanayaa shuruudda koowaad oo markasto soo hordhigo dalka Mareykanka markasto oo Mareykanka uu ka hadlo in xaaladda la dejiyo Israel la aqoonsado safaaradaha la isu furo dalal caadi ah oo saaxiibo ah la noqdo iyada oo loo israacayo in waxa la yiraahdo Abraham Accord waxa Sacuudiga uu ku adkaystaa inta la helayo road map ama jadwal Falastiin ay dawlad ku noqonayso arrinkan isaga ah oo xiriirkan in la hagaajiyo Israel iyo u dhaxeeya Saudi Arabia ma suurtagelayso arrinkii isaga ahaa marka Sacuudiga waxa uu sheegay in uusan meel la oga weecan shuruudina wali ay u taagan tahay inta Israel ay maaragtay ogolaanayso in la helo dawlad Falastiini ah Sacuudiga waxa uu sheegay in uusan aqoonsan doonin xiriir toosana uusan la yeelan doonin dawladda Israel arrinka isaga wax iska bedelay ma jirto ayay ku soo celceliyeen Sacuudiga marka ujeedada uu Sacuudiga leeyahay wuxuu rabaa inuu yoolka ku kiib gareeyo investment iyo defense pact difaac iyo maalgashi Trumpna wuxuu rabaa in uu arrinkan uga faa'iideysto shirkan iyo wada hadalkan in Israel uu raadiyo aqoonsi buuxa iyo wada shaqayn buuxda oo ay la gasho dalka Saudi Arabia safaaradihii in la furo howlaha dhan ay isu socdaan diyaaradihii isdulmaraan arrimahaas oo dhan in laga shaqeeyo madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in haddii Sacuudiga ay aqoonsadaan buu yiri oo ay normalize gareeyaan oo sheekada ay caadi ka dhigaan u dhaxaysa iyaga iyo Israel wadamada kale oo islaamkana inay soo raaci doonaan ayuu sheegay so far hadeer Abraham Accord heshiiskaas ama xiriirkaas sheekadaas waxa ku qancay oo qaatay oo normalize gareeyay xiriirka ay leeyihiin wadanka Israel oo safaaradihii furay oo diyaaradihii isu furay wadanka Imaaraadka UAE United Arab Emirates wadanka Morocco iyo wadanka Bahrain saddexdaas wadan oo intaba loo arko in ay yihiin
wadamo islaam ah oo carab ah labana ay ku taalo bariga dhexe midna uu ku yaalo Africa ayaa qaatay programkaas isaga ah marka waana markii ugu horeysay baa la yiri dalkan Mareykanka Mohammed bin Salman uu yimaado tan iyo dilkii loo geystay ninkii ahaa Jamal Khashoggi waxaa la dilay ninkaas 2018kii so 2025 waxa ka soo wareegtay almost 7 years inta ilaa markii ugu dambeysay oo Sacuudiga ay halkan Mareykanka ay yimaadaan so programkan waxa ku qancay United Arab Emirates Bahrain iyo Morocco laakiin hadda Sacuudiga ayaa la rabaa in lagu qanciyo Sacuudiga ayaa isaga sidaan idin sheegay waxa uu ku adkeysanayaa inta la helayo xal loo helayo wadan la yiraahdo Palestine in aysan ogolaan doonin in ay Israel xiriirkooda ay normalize gareeyaan marka barnaamijkan aad iyo aad ayuu u riixayaa madaxweyne Trump waxa kale oo wararku ay sheegayaan oo soo baxaysa in Saudi Arabia cabsidii ay ka qabtay markii hore Iran oo ay u maleynaysay inay tahay wadan nuclear power ah oo ay u maleynaysay waxa la yiri in ay ka awood badan tahay sidii ay ahayd ayaa waxa kadib dagaalkii ay ku qaaday Israel oo iyo Mareykanka oo sida ay iyagu sheegeen ama Trump uu sheegay ay ku burburiyeen nuclear programkii Iran cabsi badan kama qabto Sacuudiga cabsi badan hadda ma qabo that's the reason ka tan uu ugu adkeysanayo oo uu leeyahay anaga waxaan rabnaa defense pact baan rabnaa buu yiri wada hadal inaan ka galno arrimo difaac iyo maalgashi kaliya ma rabno inaan arrinkan ka hadalno hadii aad rabtaan arrinkan inaan ka hadalno waa inaad Palestine u ogolaataan idinka iyo Israelba in ay noqdaan state marka arrinkaas isaga cabsidii hore way ka bacday baa la yiri maadaama Iran ay ahayd wadanka kaliya oo ay ka cabsanaysay Saudi Arabia oo laga ilaalin jiray ama Mareykanka uu ku maali jiray ninkan gaaska faraha badan haysta taas sidaas la mid ah waxa uu sheegay madaxweynaha Trump in uu rabo heshiiska hadii la galo oo Trump uu la galo waa in uusan noqon buu yiri bin Salman heshiis daciif ah oo madaxweynayaasha soo socda oo ka dambeeya Trump ay ka bixi karaan arrinka isaga ah ma rabna buu yiri waxaan u baahanahay heshiis fadhiya oo hadii lagu heshiiyo anaga iyo dawladda Mareykanka heshiis aan laga bixi karin oo aan dhaqdhaqaaqaynin heshiis fadhiya oo madaxweynayaasha kala soo socda aysan ka bixi karin at least oo maartay last gareey xilli dheer laakiin heshiiska ay rabaan sidaan idin sheegay waa heshiiska NATO u dhaxeeyo oo kale ah hadii mid la weeraro oo Sacuudi la weeraro in Mareykan la weeraray oo kale hadii Mareykan la weeraro in Sacuudi la weeraray oo kale bay rabaan inay kala saxiixdaan marka arrinkan isaga ah waa sugi doonaa wixii ka soo kordha imaanshihiisa talow ma aqoonsan doona xiriirka Israel iyo Sacuudi caadi ma laga dhigi doona iyada oo aan la helin shuruuda wado Saudi Arabia oo ah in Palestine la helo dawlad ah mase dhici doonta in heshiiskan difaaca iyo investmentiga oo waliba mid ka adag kii hore intii la wada galo in Trump uu ku qanco oo arrinkan uu u hirgeliyo Sacuudiga intaas ayaan fiirin doonaa insha Allah ta'ala wixii ka soo kordha wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh don't forget to share the video insha Allah